بسم الله الرحمن الرحيم war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay xogo muhiim ah ku heshay in hay-ado ajnabi ah wadamo shisheeye iyo dad Soomaali ah oo isbahaystay ay maalmahan isku dayayeen in ay hub culus iyo rasaas sharci darro ah soo geliyaan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo aan haba yaraatee waxba lagala socodsiin ogolaanshana aan laga haysan hay-adaha kala duwan ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxa ay leedahay nidaam adag iyo habraac sugan oo loo maro soo gelitaanka hubka ilaa meesha uu ka yimaado ilaa barta ugu dambeysa ee lagu keedinayo. Nidaamkaas ayaana maanta u sahlay in dowladdu ogaato isna hortaagto hubkaasi sharci darrada ah ee la rabay in la soo geliyo dalka. Dowladda Federaalka Soomaaliya qorshahani la rabay in dalka lagu soo geliyo hub sharci darro ah iyo wax kasta oo qalqal gelinaya nabadda iyo xasiloonida dalka waxa ay u aragtaa duulaan lagu soo qaaday madax bannaanida iyo xasiloonida dalka. Mowqif adagna way iska taagaysaa. Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxa ay baaritaan ku haysaa hubkaasi culus iyo rasaastaasi sharci darrada ah ee dalka la soo gelin rabay, meesha loo waday, meesha laga soo dhiibay iyo ujeedka laga lahaa ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya.